waa boor hadalhayn badan ka dhaliyay gudaha magaalada Burco. Laba murashax oo ka kala sharaxan xisbiyada u cidiya wadani ayaa isticmaalay halkan boorda oo muujinaysa inay isku sidkan yihiin. Halka murashaxiinta kale oo mid waliba isticmaalay astaanta xisbiga uu ka sharaxan yahay oo kaliya. murashaxiinta isku lamaan ayaa iyagu badankoodu waxay ka sharaxan yihiin hal xisbi. Haddaba labadan murashax ayaa noqonaya murashaxiintii ugu horeeyay ee laba xisbi ka kala sharaxan ee haddana muujiya inay isku lamaan yihiin. Cabdiraxmaan Cali waa mid ka mid ah murashaxiintaasi, wuxuuna iga warramay sababta keentay inay isticmaalaan halkan boorda iyagoo laba xisbi ka kala sharaxan. boorka waxa ku sawiran Khalid Bureed oo ka sharaxan golaha wakiilada oo xisbiga u cid ka sharaxan iyo aniga Cabdiraxmaan Cali cilmiyo ka sharaxan xisbiga wadani ka sharaxan golaha deegaan ka sharaxan labadeeda waxaan laba noo wada shaqeynna ka dhaxayso si kala hadaan dhigana isku deegaana constituency isku mid ah ka soo jeednaa codkaygu midaysan yahay marka waxa had jeer la yaqaan in laba musharax oo isku deegaan ka soo jeeda ay xisbi qura iska wada sharaxaano baanar quraho yaani ka kooban hal xisbi inay sameystaan marka anaga mushkiladeedu waxay ahaydun yaani wax weeye labadii xisbi aanu ka kala sharaxnayna anaan ka sharaxnaa isna u cid ka sharaxnaa anigu wadan xisbigayga buu ahaa oo xisban ka tirsanay markii hore baan ku jiray goolihiisa dhaxaan ka mid ahay marka mar walba anaga waxa yaani wax weeye sharaf ah inaan xisbigayga iska sharaxo waxa sanadkii barra noqotay boos baarlamaan oo bannaan oo xisbigayga ka bannaan baa yaani wax weeye adkaaday in la helo marka cid baa booskii kale yaani wax weeye deegaanku ka helay cid booska laga helayna sidoo kale waxa adkaatay in boos laga helo deegaan oo cid laga helo marka deegaankaygu wakiiladiina waxaan ka helay cid deegaankiina waxaan ka helay wadani oo aniga xisbigayga haayo walbaan ka tirsanaa marka waxa sharaf noo ah yaani wax weeye inaan laba xisbi oo kala duwan ka tirsanahay oo labada xisbi mucaaradka ah ee aqlabiyada hogaaminaya weeyaan wada shaqeyntu saasay nagu dhex maraysaa saasaan board isku mid oo samaysanay stakeholderskaygu waa isku mid ololaha dhowto marka la bilaabana de kulli waan kala duwanaanaynaa oo guddiga shaxo ololaha ba jirayso cidna maalin bay ololeysaa de wadanna maalin bay ololeeyaan. dadka qaar ayaa qabaa inaanay sax ahayn arrintani halka kuwa kalena ay u arkaan in haatan aanay taagnayn xilligii ay xisbiyadu tartamayeen balse deegaan waliba uu ku foogan yahay sidii uu uga dhex muuqan lahaa kuraasta golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee Somaliland. arkaa inay wax ka qaldan yihiin sababtoo ah waa laba musharax waana isku sidkan yihiin waa golo deegaan iyo golo baarlamaan waana laba xusbi marka isku hadaf noqon maayaan isku ujeedo noqon maayaan isku maalin ma wada ololeyn karaan cid wax ma wada sheegi karaan marka wax weyn baa ka qaldamaya waxa weeye maalin u cud baa u leh maalina wadani baa u leh maalinta u cud leedahay labadii isma raaci karaan maalinta wadani u leedahay isma raaci karaan dadka xitaa lagama oran karo laba xildhibaan baanu nahay midna xusbi hebel buu ku jiraa midna xusbi hebele labadayada hal noo wada codeeyo wax dadka la dhaadhicin karaya maaha dadku waxa laga dhaadhicin karaya oo kaliya labadan nin isku sidkan baanu nahay xusbi hebel baanu joognaa golo deegaan iyo golo baarlamaan baanu nahay sida hal nooga codeeyo hal beelbeel horta ka soo wada jeedaan ninna waa wakiilada ninna waa deegaanka marka labadii musharax waa laba nin oo iskaashaan buraystay waana loo wada codeyn karaa dadka aan garanayn maaragtaa codka ama sideeba isu gelayaan nina deegaankiisu codeynaya nina baarlamaankiisaba laakiin magacyadii baa la sitaa labada nin marka dadka leh isma gelayaan waxaan u sheegayaa horta inaad mid walba horta u codeyn karto oo deegaankaaga iyo baarlamaankaaga ah marka isku khaldami maayaan horta laakiin labada xusbi waa labada xusbo mucaarado waa la garanaya marka maanta waxa la dooranaya nin walba waa xildhibaankiisa sharci ahaan sidee ayay tahay arrintani wax sharci oo yaani wax way diidayeen calan laba qof sharci soo saaray in laba la isku dhajiyo isku xisbiina ma jiro sharci diidayo laba kala xisbi in la isku dhajiyana ma jiro kaliya hadhow waxaan ku kala duwanaanaa maalinta ololahana u cidmaantay gaarkeedu u fulinaysa Khalid baa baxayo ololeynaya maalinta wadani ololeynayana aniga baxayo ololeynayo dadkeedii deegaankayga iyo codeeyaasheedii ka howlgelaya marka arinta boardkaas waa sida dadka reer Buuxaas ay u fahansiinaya Liina Khalid Bureed isku deegaantihiin xisbiga u cid iyo wadani ma xiriir inta ka duwan baa ka sii dhaxeeya ayad malaynaysaa wadiga soo dhigay ma hadda waxaan arin u dhaxaysa muwaafaqo laba xisbi gaadheen maaha waa muwaafaqo laba musharax gaadheen oo ay ku wada shaqeynayaan labada xisbi waa laba xisbi qaran oo laba xisbi mucaarad doorashada in laga wada shaqeeyo guud ahaan oo hanaan doorasho qurux badan uu qarsoomo
ayuunbaa waxa weeye ka dhaxaysa xisbiyada sida kale tartan doorashada xisbiyada ka dhaxeeyo waxa meesha yaala waa tartan xildhibaanada lagu tartamaya laakiin yani waxa cid deegaankii ay ka soo jeedo yani waxa weeye Khalid Booska oo ka tartamayo cid kula tartamaysaana ma jirto cid deegaankii ay ka soo jeedo Booska aan wadani uga tartamayo wadani kula tartamayso cid joogtaana ma jirto marka maaha muwaafaqo laba xisbi gaadheen waa go'aan yani waxa weeye consensus iyo deegaankan ka soo jeedna ay gaadheen Afici Maxamed Ibrahim telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer